الحمد لله هدان كفري جيبكاد كله ليسي هدان كفري مدحات كشي هدان كفري الحمد لله هدان كفري بوقات بديسي هدان كفري haddii dumaashidin X ay ku soo biirtay bahda YouTube-ka inaguna aynu nahay kursigan kuwa ku fadhiyay iyada ugu soo horeeyay waa inaynu ku soo dhaweynaa qaabka raganimada uu sameeyay youtuberka CK oo raganimadiis ay noqotay in qofkii aadka loogu xamanayay dhankan ama isbuucyadan ama bilooyinkan qofkaas oo ahaa xaaskii hore ee kala tageen sida qaabka uu soo fadhiisay ama YouTube-kiisa oo ugu soo muuqday iyo sida uu dadka ku xiran ama dhanka YouTube-kiisa ugu soo bandhigay iyadoo YouTube-keeda oo ku yiri YouTube-kaas ay furtay ama YouTuberad bay noqotay soo dhaweeya marka taasna waa wax dadka boqol ayna wada sugaynin ama bulshada ay wada sugaynin laakiin midaas waa mid oo isagu ku dhaqaaqay ama isagu oo ka dhawaajiyay marka meesha waxa taalo ama meesha ka muuqdo ama meesha yaalo maxay sameyn doonaan ama raggii gadaashooda ka hadlayay ama raggii la safnaa ama u arkayay in ay dhibaateynayaan ama ay dib u geysanayaan YouTuberkaas ay dhanka xaaskiisa ay kasoo marayaan laakiin way kasoo maraan dhanka xaaskiisa oo wax walba oo sameyn karaan way sameeyeen laakiin markuu muuqaalkan soo bandhigay ama dhanka YouTube-kiisa oo kusoo baahiyay ama uu la wadaagay asxaabtiisa ama dadka ku xiran dadyo aad iyo aad u fara badan ay waxay la noqotay fajac ama dadyo aad iyo aad u fara badan ay waxay la noqotay la yaab midaasna waa mid ayna dadka Soomaaliyeed ama dadka dhanka social media aad ku xiiseynaya ama sanadahan dambe aad ku xiiseynaya ay wada sugaynin ama ayna ka baran YouTuberkan inuu sidaan ama dhaqankan wanaagsan amal uu sameeyo laakiin midda waxay la noqotay mid ajab ku noqotay qof walba oo dhanka social media aad u isticmaalo ama xiiseeyo haddana waxay ama ka ku noqotay ama la yaab ku noqotay YouTuberadii kale oo dhanka gabadhaas ama xaaskii hore dhankaas muuqaalada la soo duuduubayay ama ay dhanka social media heesihii karbaashka ahay ay fanaaniinta GC Boy Sharma Boy labadaas fanaan oo waqtiyada dambe ama sanadadii dambe heesa karbaash ay soo qaadayeen ayay waxay iskaga soo duubeen sida dhanka social media lagu soo baahiyay kilibyo ama muuqaalo dhanka Instagram-ka ama dhanka TikTok-ka ama dhanka YouTube-ka saddexda meel oo aadka loo xiiseeyo ama dhanka Soomaalida ama dhanka bulshada aad ku xiiseyso meeshaas ayayna ku soo baahiyeen oo iyagoo karbaashkaas oo iska cadaa meesha u wadaan ama meesha ay ka wadaan ama meesha ula jeedaan ama ula jeedka ay muuqaaladaas ay soo duubayaan muuqaaladaasna waxay soo duubayeen labo ama saddex heesahana waxay sida karbaashka ay ugu soo duubayeen siba labo midaas waxaan dhihi karnaa waa mid oo 100% oo isaga ka raayay ama dhihi karno isaga ayaaba ka raayay sababtoo tahay wanaaga oo isaga oo muujiyay ama wanaaga uu muujiyay xaaskiisii hore dadkii ku xirnaa YouTube-kiisa wuxuu ka codsaday in ay YouTube-ka ku soo dhaweeyaan ay subscribe u saaraan mar walbo ay dhiirigeliyaan hore u socoto marka taasna waa wax wanaagsan ama la dhihi karo waa wax ku dayasho mudan ama waa wax qof walba bilaadan in oo sameeyo ama YouTuberkaas in lagu daydo ay mudan tahay laakiin dadkaas u badnaayeen ama dadka dhanka social media aad bay u karbaashayeen laakiin karbaashkaas waxa ka dambeeyay wanaag aad u fara badan aan la dhihi karo wanaag oo muujiyay in badan